durba siyaasiyiinta mucaaradka ee xilddoonka ay madaxda maamulada qaar ayaa soo dhaweeyay hadalkii kasoo yeeray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ku wajahnaa inuu talada miiska keeni doono islamarkaana uu fidinayo gogol wada tashi. madaxweynaha oo isku dayaya meelmarinta qorshihiisa doorashada ayaa cadaadis adag kala kulmaya beesha caalamka taa oo ku qasabtay inuu fariintan hawada u mariyo dhammaan saamileyda ay siyaasadda ku kala irdhoobeen. sida ay xaqiijiyeen ilo diblomaasiyadeed oo lagu kalsoonaan karo safiirada Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa kulan gaar ah toddobaadkan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo xal u raadinaya khilaafka siyaasadeed ee arrimaha doorashooyinka. sida ay xogta sheegayso labada safiir ayaa madaxweyne Xasan Sheekh ku cadaadiyay in la furo saaxad siyaasadeed si loo sameeyo ajenda qaran oo midaysan ka oo lagula dagaalamo argagixisada, mugdiga iyo meehanawgana looga saaro nooca doorasho ee Soomaaliya ka qabsoomaysa. iyagoo Xasan Sheekh u bidhaamiyay baahida loo qabo in la helo hanaan doorasho oo loo dhan yahay kana turjumaya xaqiiqda siyaasadeed ee dalka ka taagan. siyaasiyiinta mucaaradka oo gogasha uu ku baaqay Xasan Sheekh Maxamuud bogaadiyay ayaa geesta kale siyaabo kala duwan uga falceliyay, waxaana qoraal ay si wada jir u soo saareen siyaasiyiinta kale ah Shariif Sheekh Axmed, Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay madaxtooyada kaga dalbadeen in gogasha ay noqoto mid wax ku ool ah isla markaana la cadeeyo ajendayaasha miiska saaran. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kamid ah siyaasiyiinta ka hadlay gogasha uu fidinayo Xasan Sheekh ayaa carabka ku adkeeyay in ahmiyadda koowaad la siiyo madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamulada xubnaha ka ah maadaama arrimaha masiiriga ee taabanaya aayaha dalka ay tahay mas'uuliyad wadareed qusaysa heer federaal iyo mid dowlad goboleed. hogaanka Jubbaland Axmed Madoobe oo aan maamulkiisa dowladda dhexe aqoonsaneyn ayaa soo dhaweeyay go'aanka Xasan Sheekh halka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani aanu ilaa iminka ka hadlin. Xasan Sheekh ayay sidoo kale safiirada culays ku saareen dib u soo celinta xiriirka maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe si looga feejignaado caqabadaha ka dhalan kara khilaafkan gaamuray ka oo saameyn ku yeelan kara xasiloonida siyaasadeed ee dalka. magacaabista James Swan oo loo magacaabay wakiilka gaarka ah ee Soomaaliya iyo madaxa howlgalka kumeel gaarka ee qaramada midoobay ayaa Xasan Sheekh sidoo kale ku noqotay xarig uu ka tilaabi waayay maadaama Danjire Key uu yahay nin khibrad sare u leh xaaladaha murugsan ee arrimaha doorashooyinka ee Geeska Afrika. culeysyadan isbiirsaday ayaa noqday kuwa Xasan ku qasbay inuu gogashan iclaamiyo, waxaana dadka siyaasadda falaqeeya ay sheegayaan in Xasan aanu daacad ka ahayn gogashan oo sida muuqato uu ka dhigay mid furan oo aan lahayn ajenda rasmi ah, waana qorshe kale uu madaxweynuhu ugu talagalay inuu waqtiga ku dilo. khubaro kale ayaa iyaguna sheegaya in gogashan ay tahay mid uu madaxweynuhu ku qaboojinayo qayladhaanta mucaaradka iyo cadaadiska beesha caalamka, balse aan weli ka tanaasulin hadafkiisii ku wajahnaa doorashada aan heshiiska lagu ahayn ee qof iyo codka ah. ilaa iminka ma cadda waqtiga ay si rasmi ah u furmi doonto gogasha wada tashi ee ku baaqay Xasan Sheekh iyo qodobada lagu gorfayn doono taa oo lagu macnayn karo jahwareer siyaasadeed oo halka uu ku biyo shuban doono aan la aqoon.